بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maalmahan ciladaasaa ku dhacday telegramka. Marmar waa roon yahay, marmarna waa uu xun yahay. Dhibaatadaasuu la yimi. Marka kolley TikTok baan hadda furay. TikTok waa dhaamaa xagga culayska iyo ismaqalka iyo waqtiga lagu jiri karo intaba. Kolley dee hooyooyin badani ma jecla waana iska xireen. Waase muhim in maaragtay aynu xaggaa u wareegno sababo fara badan aawadood oo tani ka mid tahay iyo dadkii Soomaaliyeed oo halkaa ku jabay oo ku hoog oo ku bahay khaasatan hooyooyinkii single mother-ka ahaa. Dhowr jeer baan furtay oo iska xiray TikTok-ga. Marka isbuucyadii hadda lasoo dhaafay bishaan hadda waa ii furaa marmar baan galaa wiigii mar. Waad yaabaysaa waxa ka socda. Habeen hore miyay ahayd baan waxaan dhegaysanayay gabar waxay leedahay waa gaaloobay oo diinta islaamka waa ka baxay oo hooyaday baa dhinac taaganoo caruurta walaalaha ee reerka anaa curad u ah oo hooyadayna waa muslin oo way ogoshahay gaalnimada reerkana anigaa u weyn. Nimanka Soomaalida bay caayaysaa iyo aabaheed iyo leedahay waxyaabihii aabahay soo hooyaday ula dhaqmi jiray baan maaragtay daraaddeed baan u gaaloobay. Marka jahliga ummadda Soomaaliyeed haysta inaad ilaahay kula culowdo oo ku kufrido aabahay baa hooyaday sidaa ula dhaqmay oo diintuu ka keenay wallahi waa wax laga naco oo aad loola yaabo. Marka hooyada iyadu maanta dhowrka caruura Yurub ku haysata ama Ameerika ku haysata ama Afrikaba joogta oo ay ninkeedii kala tageen oo ma garanaysaa arrintaas daraaddeed ama iyadu diinta uga baxaysa ama caruurteedii uga baxayaan oo raalli ka ah waa musiibo aad iyo aad u weyn oo haddaan Soomaali nahay inala soo daristay. Marka balse yeelkadeeda wixii aynu qaban karno dhammaanteen waa waajib ina saaran dadka in lala hadlo. Barnaamijkan berigii karoonaha uu bilowmay baan furay 2020kii bishaan hadda aan ku jirro Sebtembar 6deedii 4 sano oo xiran baa ka soo wareegtay. Hooyadii uurka lahayd oo berigaas soo gashay ilmihii ay dhashay maanta waa ilmo waxnaana oo hadlaaya oo ilmo weyn oo 4 jiro weyn. hooyooyin badan aan aqaano oo caruurtaas haysta Soomaaliya iyo qurbahaba jooga. Ilmahaasi wuu ka duwan yahay ilmihii kaleeto maasha Allah. Hataa kuwooda aan aadka u dadaalin oo marmar casharada live-ka ay yimaada ama xajladaha dhegaysta ama sidoodaba isbeddelka ku talagalay inay beddelaan qaabkii silsiladda ahaa oo wareegga ahaa oo korriimada. Faa'iidooyin badan bay ka heleen tarbiyaddii. Qof kastaa wuu og yahay in tarbiyadeenna Soomaalida guud ahaan ay tahay tarbiyadaan sax ahayn ilmo saxna aan soo saarayn. Qasabna inuu qofku tarbiyadaasi ku koro oo ay soo saarto xanuunin nafsaaniya uusan ka marraanayn. Xanuunka ugu yar oon idiin xusi karo waxaa ka mid ah cabsida. Cabsida baa ka mid ah. Cabsidaasoo waxa ay tahay maaragtay qofku inuusan dadka hortooda ka hadli karin, inuu wadna garaac yeesho, dhidido, gariiro hadduu dad hor istaago, inuu dadka qaarkiis ka cabsado inuu telefoon kula hadlo, hadday ka soo horbaxaan inuu isku dayo inuu ka dhuunto. Waxyaabahaasoo dhan tarbiyaddaa laga qaadaa 7 sano oo horeeta ah. Maskaxdeenna qaybo ka mid ah waxyaabo ay duubeen oo soo butaacaya baa u sababa. Kuwa kalena hadda iska badaaba oo hadda maaragtay gaalnimadaasi ay ka mid tahay oo caruurihii qurbaha lagu barbaariyey oo 9meeyadii dadku markuu soo qaxay oo qurbaha Soomaalida soo gashay dhashay maanta waxna xabsiyaday ku jiraan waxna diinta waa ka dhaqaaqeen oo waa gaalo. Marka waajib bay inagu tahay inaan dadkeenna badbaadino oo dhibaatada ka badbaadino.
muddadaa 4 sano ah oo uu furaa groupku dad markay u yar yihiin 1,000 iyo ka badana baa ka aflaxay oo wax ka bartay. macallimiinta keliya hadda groupka ku jirta boqolaal waa gaarayaan. qaarkood aniga waaba iga badiyaan maanta markii cilmigan aqoontan ay furaheeda heleen, awalna dad aqoon la ahaayeen oo dhanka diinta iyo dhanka maadigaba ay wax sii baareen. wax fara badan bay kororsadeen oo fahmeen, waana iga horeeyaan. waayadii aan bilaabay baan waxaan xasuustaa nin odaya oo weyn oo maasha allah macallin inuu ahaa baan u malaynayaa, reer Hargeysa ah, baa WhatsAppka iga soo wacay marka intuu casharada qaar dhegaystay. xataa dad culimaha waaweyn oo culimaa taqaaniin oo culimada Soomaaliyeed oo culimada kuwa ugu waaweyn xaasaskooda ku jira halka oo tarbiyada ka qaata. ninka marka hadal igu yiri waagaas waa igu dhibcay. wuxuu yiri caawa hadda waxaan arkayay qof soo dhigay Sheekh Mustafa cadlad uu leeyahay oo nusaac soconayso tarbiyada caruurta kaga hadlaya. culimada Soomaalida wax tarbiyad caruur ka hadla Sheekh Mustafa ugu horeeyay. marka wuxuu igu yiri ninkaasi caruur badan buu lahaa, macallinna wuu ahaa. wuxuu igu yiri niyo barnaamijkan baan muddo baarayay, bal wax dad Soomaaliya oo ka hadla. hadda waayadan dambe waa soo bateen, laakiin waagaas 2020kii bay ahayd. muddaan baarayay buu yiri. Sheekh Mustafa ugu badan oo waxaan helay wiil dhowr ciladeed oo uu kaga hadlaayo tarbiyada caruurta. wuxuu yiri adigu culimo kale Sheekh Umarna mar uu ka hadlay dhowr jeer, ma badna, laakiin culimada Soomaalidu uma badna. wuxuu marka igu yiri hadalka aan la yaabay wuxuu ahaa, uu igu yiri igu dhiirigeliyay. wuxuu yiri culimadu marka ay muxaadara ka jeedinayaan Sheekh Mustafa cadladiisana haddaad dhegaysataan waad ka maqli doontaan. markay ka jeedinayaan barnaamijkan waxay uga hadlaaneen qaab diin ah oo mas'uuliyadda waalidka laga rabo, in maaragtay ilmaha si wanaagsan loola dhaqmo, adigu iska wax guud buu yiri. laakiin wuxuu yiri tan hadda adiga cilada aad duubtaan dhegaystay buu yiri, waxa ay kaga duwan tahay buu yiri wixii waa camaliya, waa practical. ilmuhu saanu sameeyey see loola dhaqmaya, ilmuhu dhibkaanu la yimi see loola dhaqmaya, maxaa u sababa ilmuhu inuu sidaa u dhaqmo, maxaase xal u ah. waxa la yiraahdaa taas waxa la yiraahdaa maaragtay trouble shooting, maaragtay ama waxa la yiraahdaa su'aal iyo jawaab. berigii dambeeto barnaamijkaba waxaan ka dhignay sidaas, inaan muxaadara ka ilaalino si dadku bal practically ula fahmo. su'aal jawaab baan ka dhignay. Soomaaliyay muudgal. su'aal jawaabtaas marka oo practicalka ah buu isagu ka helay. wuxuu yiri wixii wuxuu noqday buu yiri hadda awal muxaadaru ii ahaa buu yiri waxaan taaban karo oo marka aan dhegaysto aniga iyo hooyadiiba ilmihii aan horey kaga dabaqi karno. marka berigaas marka waxaan duubay fiidiyoyo kan ugu badan ee 25 daqiiqo uu soconayo, 16 25 meelahaas ugu badan, 26 haddaana khaldanayn. waagaas ay ugu dambeysay dibdaba uma aanan gelin oo YouTube-ka ku jiro waxay yihiin ilaa adigu 16 18 meelahaas ay ahaayeen maalumanaya. dhowr kaleetana adigu waa ku soo diray oo Sheekh Mustafa iyo aan soo jarjaray. marka dhowr iyo 10 fiidiyoba waxaan kaga hadlayay qaab waxaan uga hadlayay falsafad ahaana, mawduuc ahaana iyo muhiimadda uu leeyahay iyo waxaan meelaha maaragtay uu ka socdo. Sheekh Mustafa marka cadladan caaw la soo galiyay groupka wuxuu leeyahay 900yadii baa la igu bilaabay dhibaatadani inay jirto oo tarbiyada caruurta aan ka hadlo. wuxuu yiri marka barigii horeeto waxaan u haystay buu yiri in dhibku caruurta yahay. waada muu fahmi doonaa inay dhibaatada inaga haysato tarbiyada inay caruurta tahay buu u haystay oo dadkii Soomaalidu ay garanayaan tarbiyadu waa dhaqan. tarbiyadu horta waa dhaqan, taa waa inaan fahamno. cilmi marka laga yimaado waa dhaqan, waa wax lagu dhaqmo, waa wax culture-ka ku jira oo dhaqana. adduunkuna iskaga mid maaha, waa lagu kala duwan yahay. waalidka Etoobiyaanka ama Kenyaatiga ama Maraykanka ama Finlandiiska ama Britishka
qaabka ilmahooda u tarbiyadayaan oo ula tacaamulaan iyo kuwa Soomaalidu sida ilmahooda u tarbiyadayaan waa kala duwan yihiin mid kasta waa dhaqan gaar ah oo la soo bartay marka wuxuu leeyahay Sheekh Mustafa barigii horeeto dhan waxaan u haystay xaadarooyin badanna wuu ka qabtay dhibaatada inay maaragtay ay tahay ilmaha oo ilmaheenu sidaas ilmo dhib badan u yahay mar dambaan waxaan ogaaday buu yidhi in dhibaatadu ay tahay waalidka oo waxaan aynaan bagaranaynba aqoonba ulahaynba waxaan la leeyahay tarbiyadda carruurta barnaamijkan kutubta laga qoro tarbiyadda carruurtu aad iyo aad bay u badan yihiin maaragtay waa faniyada ugu badan oo wax laga qoro sababtuna waxa ay tahay muhiimadda uu leeyahay adduunka waxa saaran adduunka dhan waxa saaran waxa ugu muhiimsan waa taqaanin waa dadka adduunkan dhan koonka aan joogno waxa ugu muhiimsan dadku malaa'igta waa ka muhiimsan yihiin dadku jinka waa ka muhiimsan yihiin waxa alla ugu jecel yahayna waa dadka waxa uu koonkaa dhan u abuurayna waa dadka daraaddiis ayuu u abuuray marka fannigan ama cilmigaani aqoontaani waxay ku saabsan tahay dad waxay soo saaraysaa dad wixii dadkaa ka xumaada waxa weeye waxa xumaaday aqoontii fannigaa xumaatay haddii dadkaasi uu hagaagana aqoontii fannigaana hagaagtay oo qofka u saxan marka waa muhiim waa daruuri wey haddaaba guursanayso haddaaba ilmo dhalayso haddaaba waalid noqonayso waa inaa aqoontaan leedahay waa khasab waa daruuro wey waa muhim waa cibaado taa horta waa in waalidku uu fahmo sideedana bulsho inay hagaagto oo bulsho wanaagsan noqoto oo ummad wanaagsan noqoto waxa aasaas u ah in qoysku hagaago in qoysku hagaagana waxa aasaas u ah tarbiyadda ilmuhu inay hagaagto haddii qoyska tarbiyaddiisu hagaagto ama hooyada iyo aabbuhu ay bartaan qaabka ilmaha loo tarbiyadeeyo waxay khabiir ku noqonayaan oo aqoon u yeelanayaan dadku wuxuu yahay waayo aasaaskii dadkaa baratay meeshii dadku ka soo aasaasmayey yaad baratay haddaad aasaaska dadka taqaano iyo qaabka dadka loo tarbiyadeeyana waxa kuu fududaanaysa qaabka dadka loola dhaqmo tarbiyadda carruurta qofka barta qofka weyn uu la tacaamulaayo waxa ka khaldamay qofkaas iyo meesha wax kaga khaldameenba horuu ka garanayo sidaa aawadeed qofka mabuu sii dhibsanaya mana sii dabagelayo sidaa aawadeed marka barashada tarbiyadda carruurtu sidoo kaleeto waxay muhiim u tahay qoyska dhan wada jirkiisa hooyooyin badan oo gruubka ku jira oo gaar iila soo xiriiray waxay ii sheegeen nimankoodu inay aad ula yaabeen isbeddelka hooyada ku dhacay hooyadu markay tarbiyaddii baratay iyo qaabkay u dhaqmaysay waxay baratay sidoo kaleeto nafteeda markay baratayna waxay baratay ninkeeda waxay aragtay ninkeeda waxa ka khaldan meeshay ka soo khaldameen hooyooyinka qaarkood waxay ku leeyihiin agoonnimuu ku soo koray hooyadiis iyo aabbihiis baa isagoo yaryar kala tegey waa nin neerfisa waa nin dhib badan waa nin carruurnimadiisii dhibaato loo soo geystay qofka markaad og tahay cilladdu meeshay uga timi inayan kibir ahayn baa ogaanaysaa uu isagu dhibban yahay waa warayay leeyahay